haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada galaya hamaa la sheegay khadiija radiyallahu anha almu'miniin mubashira biljanna kaligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid calayhi salaatu wassalaam wax kala ma sido allaha salaamku salaam ka wada ayuuna u sidaa khadiijata al-kubra radiyallahu anha almu'miniin buu u sidaa oo yidhi yaa muxamed almu'miniin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayay waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كيري سليمي حليت ولا جنة أيان قالوا إلى هيئة التصي أضا يهرس عدنا وانكو أركب رسولك كسوي فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا يدي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يدي أوينك أمد النبي محمد الجنة قال دونا وقبض وقدر جسر رسول أكبر وقبض برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة ويدا هي ننكدي هي إنكدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة dhagaxdeeda iyo jagaceyga lagu cadaabayo waa markay diintu qariibka ahayd ee Makka la cadaabayo muuminiinta ee Quraysh ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nabigu kor yimiday Sumayya wa Ammar iyo odagayga Yaasir iyo inankayga Ammar oo la cadaabayo markaasay yiraahdeen ad-dahru hakada ya rasuulallah sanadka oo dhan anaku ma dhibka iyo cadaabka baan ku jiraynaa markaa buu nabigu yidhi sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna sabran buu nabigu yidhi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxalii waxa dhibaato adduunyada la soo daristoo dhan way halmaamayeen iyagu way bogtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yidhi haddaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf rabiicata binu kacb alaslami radia allahu canhu khaadimkii nebigeennu ahaa calayhi salaatu wassalaam ahla sufihii magaalada madiina qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa masaajidka nebigeenna mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuhu waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan abaa hurayra ka mid ahaa markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiruu nebigu siisiiye laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta laba timiruu nebigu u dhiibay ahlu sufihi war abaa hureyra labadan qabso war rabiic oo labadan qabso war fulaan oo labadan qabso abaa hureyra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa buu nabigu igu yidhi lima rafacta haadihi ya abaa hurayra xabaddan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu yidhi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi markaa buu nabigu yidhi hooyadaana annakaa kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yidhi abaa hurayra waa ninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiistaa aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu gaajooday diinta uu u huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nebi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebaya ilaa qiyaamaha rabiica markaa raggaasuu ka mid ahaa
rabiicata binu kacb alaslami radia allahu canhu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda musqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn bannaanka magaalada madiina loo bixi jiray magaalada madiinana bahale iyo boholo badan bay lahayd markaa buu yidhi rabiica nebiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan usii diyaarin jiray buuhi habeenka madiinat almunawara marka dhulku uu yahay xilliyadanna qabowgeega waa caadi maha qabowgeega markaasaan u keenay nebiga biyihii weysadii iyo cadaygii dana xaajadiisii buu nebigu soo gutay intaa nebigaan la socdaa buuhi waan way ilaalinayaan nebiga moogtahay sal alla alay slam markuu nebigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nebigu ku yidhi rabiica salnii maanta waxaad doontay weydiisay buuhi caawa nabi maxamed baa hadalkaa leh ku salliya yaa rabiica salnii yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego yaa leh hadalkaa muxamed calayhi asalaatu wassalaam waa nebigee waa nebi ducadiisu mustajaabo ay tahay waa nebi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed buu u yeedha geed waa nebi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad dameerka hadalkiisuu maqlaayay nebi maxamed dameerka waa nebi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada maka baa layidhi waa nebi rabiicow sheega caawa waxaad doonaysa waa isku noqonay ii kaadi nebi allow halkaa buu fadhiistay ninkan uu nebi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada madiina aqal kuma leh jago kuma leh qaraabo kuma leh qareen kuma leh meeluu wax ka cuna ma haysto hadiyadda nebiga loo keena ayuu nebigu ahlu sufaan oo wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahidaa ay hayso ayaa nebi maxamed fursad intuu siiyey uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego sallii ii sheega caawa waxaad doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuula allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuula allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga kuu galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonaayey nebigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaadda ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad ii weyddiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar
إلهي بعد سعد تبارك وتعالى dhagaxda laga dhisay buu nabigu sifeeyo wuxuu yiri labinatun min dhahabin wa labinatun min fidda labadan dhagax ee jannada la isdul dhigay laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nabigu yiri midna lacag buu ka samaysan yahay ahlal jannahu jannada dhexdeeda buu nabigu yiri way cunayaan way cabayaan waqtigay cunayaan xad ma leh waqtigay cabayaan xad ma leh way cunayaan way cabayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaaqatan midna yeelan maayaan buu nabigu yiri cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriya loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriya loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedku waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxada u yaqaanaanba aad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumayaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo khaaqatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto uf armaantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka yaa allah daacada jannada buu nebigu yidhi waa miski udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay me ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyoah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmayga ayaad u baahan oo kaadi baad ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu yidhi dhidid buu noqonayaa dhidid cunnadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wejigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbeddilay kalarkiinni waa isa soo beddilay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii beddelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan
iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba. suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon. qurux dharkaagu baaliyoobi maayo, dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso, mitir iyo badhna la ekaani maysida. waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa, waa 30 mitir baa lagu qiyaasa. ma gaboobaysid, ma dhimanaysid, ma bukoonaysid, ma baahanaysid, baytalmay geli maysid, ma seexanaysid. daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman. إن شاء الله هذا قولوا إن شاء الله. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra.